agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Professor Maxamed Faarax Xareed oo ka qayb galay xidhitaanka tababar muddo 15 cisho u socday macallimiinta iyo barayaasha kala duwan ee ka hawla dugsiyada farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa kaasi oo ujeedadiisu ahayd sidii loo sii horumarin lahaa loona xoojin lahaa mihnada iyo aqoonta farsamada gacanta ee dalka Soomaaliland tababarkan oo ka qayb qaadanaya 45 macallin isla markaasina ay bixinayeen dugsiga tababarka farsamada gacanta ee caalamiga ee TAC ee waddanka Kenya ayaa ugu horeyn madashaasi waxa ka hadlay agaasimaha waaxda dugsiyada farsamada gacanta ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Faarax Caynaan iyo Axmed Cumar Cabdilaahi Jimcaale oo ka dheeraaday wasaaraddu sida isaga xil saartay in dalka ay u soo saarto farsamaha iyo aqoon isla markaasina waxa ay tilmaameen in wasaaraddu ay garab istaagto dhammaanba kulliyadaha kala duwan ee gaarka loo leeyahay ee bixiya xirfadaha farsamada gacanta macallimiinta isa soo xilqaantay ilaa burco ilaa maxaan ku yiraahday berbera ilaa boorama ka yimid ayaan u celinayaa maxaan ku yiraahday mahad gaara trainingska halkaas aynu ka sii wadanay ma joojinayno waxaanu doonaynaa maxaan ku yiraahday inaan soo saarno maxaan ku yiraahday young teacher instructors oo inoo faa'iideeyo oo maxaan ku yiraahday wax bara maxaan ku yiraahday yararkeena waxa weeyaan waxa ka go'an labada xafiis ee wasaaradda waxbarashada ugu qaabilsan horumarinta farsamada gacanta sida agaasimaha waaxda dugsiyada aan farsamada gacanta iyo annagoo leh shahaadasiinta iyo certificationka iyo standardizationka of the TVET centers gale ayaan waxaan leenahay maanta aad ugu mahadnaqanaa safe and care oo la intuba lacagtaasi ama ka qayb gasha horumarinta farsamada gacanta TVET center providerska ka qayb gasha ayaan aad ugu mahadnaqanaa safe oo ah hoggaan iyo care oo iyaduna ah xagga bari siisa sida BTI lascaanood iyo ceerigaba waxa weeyaan macallimiinta Somaliland laga soo ururiyay ee 15 cisho wax loo dhigayay ee isugu jira nin master graduate iyo nin analphabetic ah oo intuba macallimiin yihiin isu keentay waxay la tahay biyo-meel go'ba isugu ururana idinkunba isugu soo ururtay wixii inta laga soo shaqeynayay ee Nairobi looga keenay nimanka arkaysaan wixii aynu kala hadhaynay idinkuma inooga reebay maxamuud maxamed yuusuf oo ku hadlayay magaca saraakiisha hay'adda SCF oo fuliya mashruuca horumarinta cilmiga laba ee wasaaradda waxbarashada iyo saynisku ay gacanta ku hayso ayaa isna ka waramay mashruucaasi iyo sida wasaaradda uga kaalmeeyo ujeedada ugu weyn ee tababarkan wuxuu ahaa dhalinyarada aad gacanta ku haysaan ee xirfadda bartaan mar walba idinku yimaada muxuu ahaa goobihii waxbarashada in la siiyo tababar iyo xirfad tayo leh oo ay ku shaqo tagi karaan muhiimaddu waxa weeyaan waa shaqada tababarkana ma aha muxuu ahaa macallimiintana ma aha ujeedada ugu weyn ee farsamada gacantu waxa weeyaan dhalinyarada ka soo baxda dugsiyada aad gacanta ku haysaan in ay markii halka ka soo baxaan ay shaqo tagi karaan deeqduna mar walba ma iman karto marna way timaadaa marna way go'daa marka waxay u baahan tahay inaku in aan mataqaana muxuu ahaa aan gelino firfircooni dheeraada marka taas waa iga talo hadduu ilaahay yiraahdo mar labaad waan idin hambalyeynaya waxaan idin rajaynayaa mataqaana muxuu ahaa tababar fiican inaad qaban doontaan aqoon fiican inaad meesha ka hesheen hadduu ilaahay yiraahdo aqoonta barayaasha la siinayay oo isugu jirtay qaybaha kala duwan ee biyo-gelinta mechanical-ka habka dabgelinta iyo nidaamka ka shaqaynta talaagadaha iyo qaboojiyaasha iyo alxanka ayaa gunaanadkii waxa soo xidhay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Professor Maxamed Faarax Xareed oo tilmaamay in wasaaraddu ay dadaal dheer u gashay sidii ay u dhisay dugsiyada farsamada gacanta dalka isla markaasina maanta ay u fadhiyaan in aqoon-yahankii barayaasha ka ahaa dugsiyada si farsamada gacanta kor loo sii qaado xirfadooda aqooneed horta waxa aniga farxad gaar ah inaan ka soo qayb galo ardaydan runtii inta tababar ku jirtay ba arday ahaydeen macallimiinta maanta ka qalijibisay tababarkan 6 xirfadooda waan inagu bogaadinayaa tababarka aad dhamaysateen waxaan kale oo aan inagu dardaarayaa in aad 6 xirfadooda barateen aad ardayda u tagi doontaan
aad uga faa'iideysaan insha Allah mustaqbalkana in aanu sii joogtayno barnaamijka hadda ah iyo kuwa kale oo halkaa joogtaan maanta kor inaga sii qaada waa ku dadaalaynaa